kulan sharafeed qiimo badan isla markaana balbila u ah ololaha doorashada hogaanka maamulka degmada Gaalkacyo ee Galmudug isla markaana ay ka qayb galeen odayaal waxgarad ka tirsan kuwa beelaha gobolka Mudug gaar ahaan magaalada Gaalkacyo ayaa maanta lagu qabtay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. kulankani oo ahaa mid odayaal dhaqanka qaarkood ay ku doonayeen in lagu gacan siiyo doorashada duqa degmada Gaalkacyo mudane Muxiidiin Samatar sheekeeyo isagoo ah mas'uul muddo badan ka soo shaqeeyay arrimaha maamulka isla markaana aqoon durugsan u leh howlaha maamul ee degmada Gaalkacyo. kulankan ayaa ugu horeyn waxa ka hadla qaar kamid ah waxgaradkii gaashaanka iyo garabka u ahaa Muxiidiin Samatar sheekeeyo kuwaas oo u bandhigtay beelaha kale ay doonayaan inay codkooda siiyaan Muxiidiin Samatar sheekeeye waxaana ay sheegeen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan salaamahayaa ka soo qaybgalayaasha gobasha dhammaan. mar labaad waxaan salaamahayaa beesha wuquu jire. marka hore waxaan ka hormarinayaa gobashan waxaa dhigay beesha reer Ciise oo kamid ah beelaha reer Hiirule beel kamid ah. kulli tolkan waa wada garanayaa. waxaana u dhiganay tolkeen wuquu jire hadda reeluule hadda wax ka jawaan nasiibka laakiin reelu usa kamid ah intii kale ah tolkeen wuquu jire waa mahadsantihiin ka soo qaybgalka wicitaanka la idin wacay gobasha la fidiyay ka soo qaybgashay 100% baa ku mahadsantihiin waa iskaga mahad celinaynaa imaashihiina. marka labaad waxaan doonaynaa insha Allah waxaan hadda waqtigooda dhamaystirnay waxaan baa horseetay waxyaalaha hadii qofka gobasha waa laga soo horeeyay inay la oran baa ujeedadeenu tahay xildoon baanan nahay in gobasha la kaga soo horeeyay la oran baan hadda gobasha u dhignay wuquu jire. waxaan rajaynaynaa sidaa wax uga rabnaa inaan weheli doono insha Allah waqtigeedina hadda laba joogo. waxaan rabnaa waqtigaas markuu soo galo hadii Allah idmo tolkeen walaalaheen wuquu jire waxaan doonaynaa maayirka degmada Gaalkacyo oo u sharaxan yahay insha Allah waqtigeeda waxa u sharaxan Muxiidiin sheekeeye ninka la yiraahdo baa u sharaxan asagana wax la doonaynaa ciisana wax la doonaya tolkeen wuquu jiraan waxa warabnaa codkooda hiilkooda iyo soo dhaweyntooda iyo inaan gobasha u horeysay anagu dhiganay. salaanka bacdi waxaan rabaa inaan Allah subhanahu wa ta'ala u mahad celiyo kun iyo kow jeer ilaahay nabad iyo barwaaqana siiyo isaguna kaaya keenay Allahaas inaan ku wada shukrino. inta ka bacdi waxa la yiri ninba gabadhi ka jirtay marka gabadhii waxay tiri waxaan rabaa wan subag madooba subagiis nin cayrana waa aha marka uu sheekeeyo wuxuu yiri gabar yaa horta bal gubad baan shida yaabuy ka bacdina wuxuu yiri roob mug weyn baa qaban doona geedana waa ka bixi doonaan bi dhacar buu yeelan doona goray baa daaqi doona waa dili doona buu subagiis asan sameyn ka bixinaya subag madooba ilaa aysan ku keenaya horta xilka aan doonayna xilli intaas jira weey aan rabnaa tolku inuu fahmo dawladdu waa dhisan tahay hoose ma ahan gogasho inaan u dhigno inaan mucaarad ku nahay ma ahan inaan xilligeeda aanu rabno inaan calqaladayno waxaanu doonaynaa dawladda noo dhisan oo mandate-ka haysata oo waqtiga leh xilliga ay dhamaato oo ku beegan wankaas subag madoobaha ku beegan iyaanu rabnaa tolku inuu nasiiyo xilkaas oo nala raadiyo waxaan la leeyihiin waa wax hadii Ilaahay ku roon yahay qof walaalihi uu mar u hunguri dooran karo soo doonan karo dawladda markii mandate-ka ugu dhamaato oo maamulka jiray uu waqti doorasho soo dhajiyo doorashadii timaada oo xilligaas dawladdaas midda joogtaan ay noo dhamaato xilliga aan sharaxana horta waa xilliga ila fahmaal raba waxa suuragal in la yiraahdo maamulka dhisan inuu ku kacsan yihiin maxay tahay gobasha degdeg dadkii baa hunguri daro u bataan waxaan rabnaa cod dheer waxaan ku leenahay batalaale meesha la yiraahdo waxa lagu aasay nin boodari la oran jiray gabar buu jeclaaday hodan Cabdulla walan wala oran jiray nasiib darro fursad ma helin maalin baan soo maray waxaan rabay bal wuxuun qisa iga sii nimayo anaga nin baa hodan Cabdulla walan wala laga jeclaaday
hadda ku simi lahaydeen intuu u dhinto batala lagu aaso iyo hadda gabadhana la siin lahaydeen warkayo waxaan rabnaa saaka ina waxyaalihii hore oo Soomaalidu tixgelinta ku lahaa geela iyo gabdhaha ayay ahaayeen oo hiilka ama la isugu weydiisan jiray ama la isugu dhiban jiray geeli waxa bedelay dhulka barnaamijkiisii dhulka ku jira gabdhihiina xil baa bedelay ninka marka Hodan Cabdulla walaal naga jeclaado degmada Gaalkacyood ayaa waxaan rabnaa intuusan nagala dhiman in la qaado horta warkayga dhan saas uu koobaya codsigayuna wuxuu ku wajahayaa beesha ugu jire daldaloolka gogashayadu ay leedahay oo inaan beel ugu jiray hilowle annagoo xumin kasi aan u yeerno sida naloo tixgeliyay waa ka mahad celinayna daldaloolka iyagana waa qaadanayna warka hilowle ku dhimanna waa wala laabanayna hilowle xilka uu hayaan ku qadayna anagu oo la oran kara isku beel baatiino hebel baa waxa sideen haya dakanadiisaan leenahay deeqa jirana waa nala ku leeyahay in la yiraahdo hebel buu jiraa waxaan uga soo hormarnay waxaan isniin armu meeshii boodari maraa inta tolka xalkiisa ku maqantihiin soo dhawaada walaalayaal adeeryaal awoyaal annaga warkayagu saaka wuxuu ku kooban yahay xilkaas maandhaydka hadda nin tolka kamidii u haysto iyo xubno kale dhamaashadiisa yididiilo dheer baan qabnaa inaan iska noolaan doono ayadoo aan ognahay xadiiska nabi maxamed inuu ahaa kun fi dunya kaannaka qariibun aw caabiru sabiilin adduunyada waxaad ku ahaataa qof qariib oo maanta adeegan hayo laaban haya amba meheradka adeegan ama wada qof goyn hayo kale adduunyada saasa nagala rabaa laakiin hadda waxaan tacaamulaynaa 2 sano ka bacdi markii maayarku uu dhamaysto xilkiisa idlayso hadii la yiraahdo taxambaysi baa bilowday oo meesha waxa jira ciyaar la dheeli jiray miyigii marka wax taxambaliyada leedahay ana taabtay bay leedahay wax leeyahay nimayo ina horteen nala oran waa la taxambaystaan meesha u nimid ee maana u imaan maayarka jira iyo dawladda jirta ilaa aqaladay uma imaan laakiin taxambada in la kala hormara anagoo cabsi ka qabna uguna qalbi jeejino ninka macnaa xildoonka oo aan ka sheekaynay heerka bahashu ay nagu marayso waxaan malaynayaa 2012 buu isku soo taagay ninkaas inuu xil duqdag ma raadiyo haddana 3 la maray 11 ka sano ayuu gabardoon yahay hadda wuxuu joogaa meesha ama tolo ka qaadi lahaa ama ka dhiman lahaa qaar kamid ah waxgaradkii kulankan ka qayb galay ayaa iyaguna soo dhaweeyay hanka dooniseed ee Muxudiin Samatar sheekay iyo qaarkood sheegay inuu yahay masiil mudan in lagu aamino hogaaminta maamulka degmada Gaalkacyo marka uu dhamaado maamulka haatan taliyiisu shaqayso mucaaradanimo kuma jirto oo reer hilowle iyo ugu jira ama sacad oo dhan ama Soomaalida maamulkan u dhisan yahay cid hadda mucaarad u la taagan anagu ma ogin hadaan dhaqanay hadii qaybaha bulshada leeyahay maamul dhisan oo si nidaam loo soo doortay oo mandatekiisa wax u dhiman yihiin weeye laakiin waxaan u dareemay hadii uu Cabdiraxmaan Sheekh Xasan uu xilka dhamaysto in qolo kale oo ugu jira ay Google u dhigato in arintaasi looga hortagayo sidaas aan u arkayna insha Allah Muxudiin sheekay waa soo dhaweynayna 11 sano hadii uu xilka doonay hadii Ilaahay uu qoro kulli waa heli doona insha Allah laakiin sabab ugu jire inuu ugu dhimanayo oo maleema xilka la'aantiis insha Allah hadii Ilaahay idno waxaan rabaa inaan warkayga ku soo gaabiyo aan iskaga soo aruuriyo codka saaka aadna weydiisateen dadka iska lahan ka mid nahay go'aankiisa ma leeyahay waxaan ku matalayaa raggaan fadhiyo oo reer Sinoole ay soo dirsadeen wuxuu soo dirsadeen codkaasna walaalayaal aadna weydiisateen anoo afkii reer Sinoole ku hadlaaya waa idin siinay waana idin kula shaqeynaynaa hadii Ilaahay idmo waxaan kaloo aad u soo dhaweynayaa ama u hambaleynayaa jifyada khaaska oo reer hilowle oo reer maxaad wax dheer ka tirsan oo haddana reeciisa siya gogosha ay dhigteen oo u dhigteen wuxuu jiraha kale oo 7 jifa ayagana waa u hambaleynayaa waan soo dhaweynayaa waxba faal dheer ka sii gelmaayo hal malaynayaa wiilba wuxuu yiri aniga hooyada ninkii qaba marba adeerkay ah marba waxa la taagay qolada kursiga waxa uu ku jira leeyihiin qolada ku hormarto tiraada warbaanta cadaalad ma hayo hal fiiriyo kulay sharciyadeeda iyo qaanuunka ay leedahay waxa uu maxfalkaas lagu yiraahdo waa rabnaa in lagu siiyo waa sharciyad iska jirta anu kulay aan ka turjumaya bahweynahan iyo mas'uuliyahan waa soo dhaweynayaa codka ugu horeeyaan ay la sheegay bixinayaan waxa weeye walaal waadin siinaa hadii waqtigu na gaarsiiyo daan waqtigu gaaro hadda nolol ku gaarana inaan
idinla raadiyo waa idiin ballan qaadaya haddaan waqtiga gaadhinna waxay la timidhaa bawil ciddi joogto oo markaa gaartay baad kala macaamilaysa xilka soo doonay waa nin ugu jiraa waa nin maarata beesha ka tirsan saacada oo maayarka degmada Kaalkacyo dadka xaqa u leh inay qabtaan kamid ah dadka Soomaaliyeed kamid ah halku waa xil Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed oo dhan ka dhaxeeya cid gaar ah lagu maamulaa ma jirto markii la qabto cid Soomaaliya oo degmada Kaalkacyo hoostimaada dhan bay wuxuu ka yahay qofku mas'uul ka yahay laakiin qabashadiisa maartay cid gaar ah ayaantan maartay sidaas ay ahayd oo beesha ugu jire maalmahan iskaga dambeysay ninka meesha hadda xilka doonaya waa nin dhalinyaro aqoon-yahan oo la yaqaan oo maamulka dawladda degmada Kaalkacyo ku soo jiray muddo dheer ka soo shaqeynayo shaqada yaqaana aan ceebo badan oo lagu yaqaano hadda media laga sheegana uu jirin mid gaar ah hadda qof ay isku qabaan ma ogi laakiin waa nin intuu soo joogay aan isleenahay cid hadda uu maaragtay dhibaatooyin iyo culeysyo oo intuu maamulada ka soo shaqeynay aan ku ogna oo aan ahayn waa nin astaahila inuu xilkaas qabto Muxuudiin sheekay waxa la soo dhaw Muxuudiin iyo beesho dhan waa xil aad astaahishid xaqna u leedahay inaad qabatid annagana beelihii xaq u lahaa in la weydiisto oo maaragtay ay kula raadiyaan oo ku siiyaan baanu nahay waxaan leenahay ilaahay hadduu khayr yahay ku sahlo waa kugu ducaynaynaa waana astaahashaa inaad qabatid beeshuna inayna weydiisato maaragtay xaq bay nagu leedahay sida maaragtay awalba la isku weydiin jiray hadde midaan gaarka ah oo haba maaragtay nimankan reer tolo hore ilaa wax soo doonayaan amaana ragta dadku wuxuu yiraahdaa xalaal buu moodaa hadda inay yiraahdaan marka anaga jiradar anaga qabano kuma caawisna nin yiri hadda anaa rabo ka horeeyay sida uu sahal yirin ma jiro waqtigu inuu dheer yahay waa la sheegay beesha tan anagu aan magacooda hadda ku hadlahayo qolada xilka doonaysan ka mid nahay oo Muxiidiin reer Daawud iyo Anderto waa isku dhaxdarsan yihiin marka anoo afkiisana ku hadlahayaa kii qabiilka Cali Xayluuna waa ku hadlahayaa waxaan soo dhaweynaynaa runtii aad iyo aad baa u mahadsantihiin abtiyaal waadna weydiisateen haddaadna weydiisateenna waa mudan tihiin inaan idhaahno waa mahadsantihiin waana sidii wax loo dooni jiray ceeb maahan waqtigu ama ha fogaado ayadoo sida uu fogaya waqtigu dad badan oo doonaya waa la arkay ama horaa loo doonay in la helaana xaq Ilaahay bay ku xiran tahay laakiin mar hadda inta isku keenteen oo ugu jira aad weydiisateen afkaygu wuxuu yahay inaan idhaahno mahadsantihiin soo dhawaada Ilaahay baa mahad iska leh war badan oo anigu aan leeyahay kale ma jiro rag badan oo hadalka ama iga mudna ama ila qabiilkana waa fadhiya aad iyo aad baa mahadsantihiin yimid beelweynta ugu jira Ilaahay subhanahu wa ta'ala mahad iska leh aad iyo aad baan u mahadcelinayaa say goosho u soo ajiibeen walaaluhu dhigeen waxaan kaloo u sii mahadcelinayaa walaalaha reer Ciise qaasatan iyo musharaxa wiilkayga Muxiidiin sheekeeye aad iyo aad baan u mahadcelinayaa Ilaahay mahad iska leh waxaan leeyahay anigu waa u hambalyeynaya hambalyaan leeyahay inuu xilkii hore kala ka dhigayaa Ilaahay ha u saqiro annagoo dhanna nabad Allah nagu gaarsiiyo qaasatan annaga beelahaan Abubakar Culus wixii ay walaaluhu weydiisteen waa in ku diyaar Ilaahay hana gaarsiiyo alxamdulillaah rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil mursaliin sayyidina muxammadin wa calaa aalihi wa sahbihi wa sallim Ilaahay baa mahad iska leh waxaan mahad celinayaa walaalaha reer Hilowle Ciise Maxamed Hilowle wardheeraan oran lahaa Ciise Maxamed gogasha sharafta leh ay maanta dhigeen u dhigeen beesha ugu jire hadal iyo haleele madahnaa la yiri yaraan baa maanta layga dhigay awal ayaga iga dambeyn jiray kullina waa la wada bixi nin yiri waa doonahayeen lama arko aniga waa igala hormaraaye anaa rabay inaan gogol dhigo saan u lahaa waqtigu waa dheer yahay oo sanad iyo siyaada dhiman ayay mar kale walaalahay iga soo hoos dusteen mar haddii la igala hormarayna waxay la tahay inaan ka foqo waa mudan yihiin inaan u tanasulo waa mudan yihiin inaan ka foqana waa mudanahay
haddee waxaan soo dhawaynayaa beesha gobasha dhigatay ciise maxamed reehilowle ciise maxamed waxaan ku soo dhawaynayaa oo la qaadahayaa ninka dhowr iyo 10 sano xilka doonahayay Muxiidiin Sheekeeye waxilka idinku haystay lama arkeen nimankaas reer ayaan le oo yaraankii maanta noqday awalna adinku ka yaraydeen oo xilka doonahayay xubintoodii maanta intaad kala hormarteen ay rabeen inay gogol u dhigtaan idiintana sulay ahmiyad weyn bay idinku leeyihiin ogaada meel ku qorta waxna la raadiya haddii xilkaas ilaahay idinku guuleeyo muddadaas ilaahayna wada gaarsiiyana inaad nimankaas kala hormarteen oo meesha u soo socdeen qorshaha ku darsada buuga ku qoro Muxiidiin haddii ilaahay xilkaas calaf kuugu daro Allah kuu fududeeyo xilka iyo mas'uuliyadda noo dhisanna awal baa hore looga hadlayo waxa la yiri wax arqaladaynaya ma wadno Cabdiraxmaan Sheekh Xasan laftirkiisu intuu loobinka wada waa la ogaayo haddii qaabku ku socon jiray waxay la tahay aduguna inaad carrada ka soo bowsan doonto oo maanta gogol dhigay inaad uga hari doonin hadalkii waxaan ku soo kufinahayaa tolow xubintii aadna weydiisateen waa in siinay magacayaan la idinku siinay sidoo tolku inii siiyay baan inii siinay lagama qaniina baahay awal kalka hore waxa isla buusaysan ugu jira gees buu naga maray maanta inay fadhiya horta wixii ku jiraan ka bixi wixii ka buurna ka bixin bii laba nin oo dhawaxsiin ka dhaxay maanta waxa weeye haddaan wadin ka qaadin haddaan calafin ka qaadin wax kale oo ka qaadaya lama arko ugu jiraan waa biyo xirieyay waqtigaas hal la gaar hadii ilaahay idmo maanta la gaarana hadda waxa ila tahay waa wax inii taagan nin dambe gogol dhiganaya maanta inta istaago soo go'anayaan ma jira maxamed xaaji aad buu u mahadsan yahay duniyada ka jeclaa maanta walaalkiisu ka samray asaga booska ku fadhiya hadii ilaahay waayahay Muxiidiin waxaan leeyahay hadaa boodari u dhintay ina wal maxay darteed haduu u dhintay jacaylkeedii jacayl siyaasadeed xilka soo socda maanta u dhimamaysiye ku sii foorfoori hadii ilaahay ya ku sii foorfoori baan ku leenahay waa inii ducaynayaa talada Allah noo toosiyo khayr badan Allah na siiyo arrinka nimanka sharafta qabiilka maanta dhigteen Allah ku guuleeyo annaguna intii karaamaysa Allah naga dhigo guud ahaan waxaan leenahay colkan hay halkan soo jeeda Allah naga wado inta dhaawacantana Allah noo reeyay intii dhimatana Allah u naxariisto aad iyo aad baa u mahadsantii